السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal daawadayaal ku soo dhawaada wararka maanta waxaan idiin soo gudbinayaa wararka ugu muhiimsan ee caalamka iyo gudaha qodobada wararka haddaan idiin bilaabo dagaalada ka socda bariga dhexe Mareykanka iyo Israa'iil oo sii xoogaysanaya dhanka kale Yurub oo cambaaraysay dagaalada ka dhacaya bariga dhexe dalalka Yurub oo qaarkood cambaarayeen qaarna ay ka aamuseen shidaalka oo kor u kacay caalamka iyo dowladda Soomaaliya oo ansixisay dastuur macmal oo gacan ku samaysa dastuurkan waxay sheegayaan qolooyinka mucaaradka inaan loo dhamayn oo iska samaystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobada aan warkeedii ku hayo haddaan intaa ku soo koobo daawadayaal ama dhegaystayaal isagoo faahfaahsan xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo United States iyo Israa'iil ayaa sii xoogaysanaysa weerarro isdaba joog ah ayaa la soo warinayaa iyadoo khasaaraha dhimashada iyo dhaawacu kordhayaan dhanka siyaasadda gudaha golaha senatarka ee Mareykanka ayaa taageeray siyaasadda dagaal ee madaxweyne Donald Trump iyagoo diiday hindise sharciyadeed lagu xadidayo awoodaha dagaalka arrimahan ganacsiga shirkadaha America Airlines ayaa heshay ogolaansho ay dib ugu bilowdo duulimaadyada tooska ah ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Venezuela kuwaasoo hakad ku jiray ilaa iyo tan 2019kii dhanka kale wasiirka difaaca Israa'iil Kastan ayaa sheegay in hoggaan kasta oo cusub oo military oo Iiraan magacowdo uu noqon doono bartilmaameed taasoo ah sidoo kale Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in weeraro diyaarado aan duuliyaal lahayn lagu qaaday xarunta sifaynta shidaalka ee Ras Tanura iyadoo faahfaahintaas khasaaraha weli aan la sheegin Yurub dalal ay ka mid yihiin Italy, France, Greek ayaa qaaday tallaabooyin degdeg ah oo amni iyaga oo ciidamo u diray jasiiradda Khubrus si ay uga hortagaan khatarta ka iman karta dagaalka bariga dhexe dhanka kale suuqyada caalamka waxaa laga dareemayaa suuqyada saamiyada Yurub ayaa hoos u dhacay halka qiimaha shidaalka sare u kacay taasoo saameyn ku yeelatay dhaqaalaha guud iyo ganacsiga wararka ka imaanaya Afrika gudaha South Africa waxaa socda arrimo siyaasadeed iyo dacwado la xidhiidha musuqmaasuq iyo dambiyo waaweyn suuqyada dhaqaalaha Afrika ayaa waajahaya hoos u dhac sababo la xidhiidha qiimaha shidaalka iyo saameynta colaadaha caalamiga ah wararka ka imaanaya dhanka iyo Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhaweeyay dastuur cusub ee uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in dastuurkani soo afjarayo muran sharciyeed u dhaxeeyay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isla markaana uu dhiirigelin doono maalgashi caalami ah si kastaba maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa ka hor yimid dastuurka cusub iyagoo sheegay in aanay aqbalayn dhanka kale laamaha ammaanka ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah 3 qof oo lagu eedeeyay dilkii wiilkii 9 jirka ah ee ka dhacay deegaanka Garbo ee gobolka Nogob baaritaano ayaa socday ilaa hadda dhanka kale Somaliland fadhigii 56aad ee golaha wasiirada Somaliland oo ka qabsoomay qasriga madaxtooyada kana uu shir gudoominayay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa lagaga hadlay arrimo muhiim u ah oo khuseeya amniga dhaqaalaha dagaalka bariga dhexe caafimaadka iyo waxbarashada dalka qodobada muhiimka ah amniga dalka wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in amniga gudaha ahaan dalka uu sugan yahay isla markaana aanay jirin xiisado waaweyn marka laga reebo falal dambiyo maalinle ah iyo shilal gaadiid xukuumaddu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa adkeynta nabadgelyada dhaqaalaha dalka wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in colaadaha bariga dhexe ay saameyn ku yeelan karaan dakhliga iyo koboca dhaqaale maadaama shuruucaha badeecadaha dibadda laga soo dejiyo ay lafdhabar u yihiin dakhliga dalka waxaa sidoo kale la adkeeyay muhiimadda caymiska qaranka saameynta dagaalka bariga dhexe wasiirka ganacsiga
ayaa ka digay in xiisadaha ka jira marinbiyoodyada iyo dalalka shidaalka soo saara ay sababi karaan kor u kaca ku yimaada qiimaha shidaalka iyo miciishada. Xukuumaddu waxay la shaqaynaysaa ganacsatada si loo xakameeyo sicir bararka. Wasiirka caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in xumadii dalka ka jirtay hoos u dhacday, balse abaaruhu ay saameyn ku yeesheen adeegyada caafimaadka, waxaana laga digay in colaadaha bariga dhexe ay carqaladeyn karaan helitaanka daawooyin dibadda laga keeno. Wasiirka waxbarashada saameynta abaaraha. Wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in abaaruhu sababeen barakac iyo maqnaanshaha arday badan, gaar ahaan miyiga. Waxaa la soo jeediyey in gurmad gaar ah loo sameeyo iskuulada ay abaaruhu saameeyeen. Dhanka kale, madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku galgashay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, isagoo iska samaystay dastuur u gaar ah oo ay u ansixiyeen baarlamaan isaga hoos yimaada sida Cali Wajiis oo aan baarlamaanka ku jirin. Dhanka kale, waxaad ila daawataan bal fiidiyowgan xildhibaanadii ka soo jeeday Puntland oo xalay xadhko la xidhxidhay, qaar fakadeen, qaar dhulka laga soo daayey. saaxiibkiin baa inala wadaagaya la daawada. xabsiga laga soo daayay xasan sheekh maxamuud siciid dani wuu ka adkaaday. dani inuu qorshe keeno waaye, si kale ma ahan arrinkan markii loo fiiriyo waaye. xalay intii xildhibaanadii ka soo jeeda Puntland iyo xataa la taliyihii siciid dani intii la weeraray ayaa la taliyihii qoorta laga soo qabtay, ayaa xabsi la geliyay saaka ilaa hadda xirnay. daqiiqadan hadda kula hadlaya in kala soo daayay odayga arkaysid la taliyo ahay. marka waxa lagu marsiyado macla lacago xal qaybinay. siciid dani sala socotid ba wuxuu dhahay Muqdisho kama baxay ayadoo xal la gaarin. Muqdisho wuu ka baxay, la taliyihiisa ku haray, arrinka asaa kala waday si la sheegay. intii airport hotel lagu weeraray ayaa qoorta laga soo qabtaa la xiray kaligiis, xabsi ku jira odayga. marka hadda la soo fasaxay odaygii hadda xorriyado helay. xasan sheekh maxamuud siciid dani kabto la maray xalay, wuu xirxiray كلنا كوي كلنا أبوه الرئيس على سعودين. dadka siyaasadda Faransiiska waxay taagay booliska arrinka waxa laga rabay inay siyaasadda macna ishaysiga inay dhexdhexaad ka noqdaan booliska la taagan yahay. laakiin sidoo kale siciid dani waxyaabaha looga adkaado waxa kamid ah dastuurka lama ansixin karo. maanta dastuurka lagu murasanayo waa la ansixiyay. siciid dani dhiisoo shanta ahay Axmed Madoobe iyo mucaaradkii xasan sheekh maxamuud talaabada soo qaaday. waxyaabaha kale sidoo kale la isku haysto waxa kamid ah oo uga adkaada dani cafinta. dani lama cafi kareen dhaheen team dani waa la cafiyay. sidoo kale cunaqabateynta lama qaadi karo, waa la qaaday. ala kulli xaal Soomaalida waxay taagan yihiin xasan sheekh maxamuud dani iyo mucaaradkii wuu ka adkaaday. xaaladda halkaas ay maraysaa. daawadayaal war waxaan caawidinahaynaa waa iga intaa tan iyo intaan dib u kulmayno. habeenimo wanaagsan khiyaartana daawanaysa. subscribe-ta saara, share-ta, like-ta, baalka kor soo qaada. habeenimo wanaagsan. bye.